berihii la soo dhaafay isbuucyadii u dambeeyay waxaa baraha bulshada la isla dhex marayay in madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Kheyre ay iibinayaan badda Soomaaliya taas oo ah hantida maguurtada qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed. Ma laga yaabaa in Ethiopia oo dhawaan Soomaaliya heshiis dhan walba la saxiixatay ay hoos ka riixayso arrimahan oo idil, waxaana taas ay sababi kartaa in Soomaaliya ku dhiirato muddo kadib inay dhammaanteed iibisho shidaalkii dhaxalka u ahaa Soomaaliya. Waana hanti maguurto ah oo shaqsi walba oo Soomaaliya ka gubanayo in uu waayo. Laakiin mid ka mid ah siyaasiyiinta careysan oo inkiraya baaqan u jeedinaya madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay sababta iyo sida uu arko, isaga oo cadeynaya in shidaalkii la iibiyay ku dhawaad 3 bilyan oo lacag ah, taas oo aad uga raqiisan markii loo eego hantida ku jirta dalkeena hooyo. Haddaba si aad wax badan uga bogato halkan una daawato muuqaallo ku xiiso geliya, fadlan like, subscribe and share. waadna mahadsantihiin dhammaantiin. Soomaaliya iyo Itoobiya wax ganacsi ama heshiis ama dhex mari karaa? Su'aashan jawaabteeda waxaan weydiiyay mid ka mid ah saxafiyiinta falanqeeya arrimaha Geeska Afrika, kaas oo dhan walba u qaada dhigi doona waxa Soomaaliya iyo Itoobiya dhex mari karaa. Soomaaliya iyo Itoobiya ganacsi xor ah ma dhex mari karaa? Su'aashan jawaabteeda waxaa ka horeeya faham guud iyo xaaladda labada dal. Bilowgii bishii May, Itoobiya waxa ay gashay 3 heshiis oo 3 dekedood sal u ahaayeen: Port Sudan, Lamu oo Kenya ah, iyo dekada Dorale ee Djibouti. Itoobiya waa 102 milyan oo qof oo dhul ahaan go'doonsan. Soomaaliya waa 12 milyan. sida lagu sheegay tirokoob qiyaas ku salaysan. Dhaqaalaha Itoobiya hadda waa dalka ugu korista badan ee Afrika. IMF ayaa si saadaalisay in celcelis ahaan uu kobci doono 8.5%, waxaana dhaqaalaha guud ee wax soo saarkeedu uu yahay 72 bilyan. Soomaaliya dhaqaalaheeda waa 6.2 bilyan. Marka xaalka waa budaqabe iyo biyo-qabe way isku baahan yihiin. Soomaaliya waxay leedahay xeeb dheer oo gebi ahaan dalka ku dhirirsan oo aan laga faa'iideysan. Itoobiya waa 100 milyan, waxaana dekad u ah Djibouti oo kaliya. Soo kabashada amni iyo dhaqaale ayaa looga faa'iideysan karaa ee dalka. balse ka hor suuragelinta arrintan ayaa waxa habboon oo ka horeeya qorshe howleed iyo daraasad lagu baarayo wax ka dhalan kara heshiiskan iyo in la sameeyo nidaam lagu dhowrayo madax bannaanida dalka. sanadkan waxaa ka dhacay Itoobiya isbedel kadib kacdoon shacab, waxaana taa ay keentay inay dhalato dawlad ka furfuran kuwii hore oo uu ra'iisul wasaare ka yahay Abiy Ahmed. waxa uu qaaday tallaabooyin dhowr ah sida ka tanaasulida dhulka kala dhaxeeya Eritrea, mushkiladda webiga Niil oo uu u tagay Qaahira. wuxuu qoraal ku soo saaray in Itoobiya ay ka baxday heshiiska Berbera. dhammaan go'aanadan oo ka hor imaanaya siyaasadda Itoobiya, ra'iisul wasaaraha cusub ayaa qaatay, waxaana uu sheegay in mustaqbalka fog uu muhiimad siinayo. haddaba Soomaaliya iyo Itoobiya inuu dhex maro ganacsi waa muhiim. dhanka kale, shakiga ah in Itoobiya dhul Soomaaliyeed ay la wareegi kartana suuragal ma ahan xilligan. tusaale 1993 waxaa kala go'ay Eritrea iyo Itoobiya kadib dagaalo dhex maray labada dhan. wixii markaa ka dambeeyana Itoobiya waxaa dekad u ahayd Djibouti oo tirada dadkeeda ka yar yihiin 1 milyan. haddaba ganacsiga Djibouti iyo Itoobiya waxa uu tusaale u yahay in iyadoon la isku xadgudbin la ganacsan karo. sidaas si la mid ah Mareykanka iyo Ingiriiska oo bari isu ahaa cadow ayaa xulufo ah. Japan iyo China oo iska dilay malaayiin qofood ayaa wada ganacsada. dalalka Yurub oo dagaaladii koobaad iyo labaad ee dunida ay dhex mareen ayaa hadda gaashaanbuura. marka Soomaaliya xeebaheeda ganacsi iyo maalgashi oo u baahan yihiin. fadlan saaxiibka aynu jecelnahayo, fadlan like, subscribe and share. aad ayaan kuugu mahadcelinaynaa. waadna mahadsan tahay mar kale. markaaniga ka qayb galay waxaan fadhiyay maalintii xilliga la furay hadda Farmaajo 3 bilyan oo dollar ayuu siistay shidaalkiini. wuxuu doonayaa inuu idinku laayo ayuu doonayaa. 30 qofood oo Soomaaliya ka badan meesha joogta, hal qofna kama hadlin.
hal qof oo damiir leh oo Soomaaliya kama hadlin auctionku wuxuu marayaa xil lagu kala baxadeer $3 billion Soomaaliya shidaalkiina oo dhulka u jira in ka yar 300 mitir dhulka u jira oo badda hoosteeda ah in $3 billion farmaajo ku iibsado Soomaaliya ma dhaqataa maya dhaqataa waxay tahay $3 billion ma dhaqataa waan iska celinaynaa dulliga waan iska celinaynaa waa la qaadanayaa haddii aanay ka celin waa la qaadanayaa waxay imaanayaa 40 kambani baa meesha joogta waxay rabeen inay qaataan عليكينا ربنا قاتان قاتان برادة مايا كغيب قلي مع سوق قلي 8 o'clock